madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay Arbacadii shalay ahayd inuu rabo in uu helo cod iyo fiidiyowba wax ku saabsan markii qunsuliyadda Turkiga uu galay wariyihii huwaayadan la weysanaa ee dalka Sacuudi Arabia u dhashay kaasi oo Turkiga ay sheegeen in xubin ay u jiraan saraakiil ka tirsan dalka Sacuudiga qunsuliyadda Turkiga uu ku leeyahay Sacuudiga 2 isbuuc waqti ka fog doonista Trump ee aqalka cad wuxuu imaanayaa kadib markii ay muujiyeen taageerada ay u hayaan dalka Sacuudiga oo ah wadan xulufo muddo dheer la Mareykanka waxa uuna sheegay madaxweyne Trump in baaritaanada ku saabsan wariye Jamal Khashoggi in uu yahay mid soo gabagaboobi doono dhamaadka toddobaadkan Sacuudi Carabiya ayaa waxay inkireen inay dileen wariyahan mar wax laga weydiiyay madaxweyne Donald Trump hadii boqorka Sacuudiga King Salman iyo sidoo kaleeto dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Mohammed bin Salman ay mas'uuliyadda dilka wariyahan ay lahaayeen ayaa waxa uu ku gaabsaday in uu rajeynayo inay qaadan doonaan tallaabada saxda ah markii la ogaado go'aanka Arbacadii shalay shirkadda Twitter